aadwani salaamaya saaxiibayaal halkan waa rashka True Love meel kasta joogtaan saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaal kooban ee qamar suugaani oo muuqaalka ilmeysiisay xaaskiisa Nasiima iminkan waxa uu ka sii baahayaa baraha bulshada saaxiibada waan idiin soo gudbin doonaa muxuu yahay muuqaalkaasi maxay dareentay markii ay aragtay xaaska qamar suugaani muuqaalka asaga waliba gabar kaleeto isla duubayaan oo lagu arkay aalada TikTok ay waliba YouTube-ka ma laga yaabaa in muuqaalkaasi dartii ay ku kala taagaan qamar waliba xaaskiisa lagu magacaabo Nasiima ilaa intii la rajeynaya in qamar uu dejiyo xaaskiisa maadaama ay maseer dartii ay u sameyn karayso wax kasta oo nolosheeda ku saabsan saaxiibayaal intaasi in ka badan xoog ku saabsan dhanka baraha bulshada gaar ahaan qamar suugaani ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibada waxaan idinka codsanaynaa in YouTube-keena rashka True Love soo subscribe gareysaan iminkan waana daawanaysaa subscribe-ka inoo saar haddii uu subscribe ku saaran yahayna like nagu caawi dabcan share-ta haddii dhib kugu tahayna iska dhaaf kali muuqaalkan daawo waana maasan tahay وهجاج صاحب يلا رهانتي مركز عن تهاي واحد كستواد لكل ميسا طبعا هدات فنان تهاي كسي دران تهاي طبعا فنان كوحلو بهاي هاي ميل كستمر كوتاجو هوينكو حجعليهن إن فنانين تهاي مقالة السمايا لكن حاسس كود هذا مسير بديهن ayaa ahmid markaasi holac ku ah ama dabcan xanuun ku ah dabcan fanaanka heesaha qaadaya iminkan qamar suugaani ayaa waxa lagu soo waramayaa in muuqaal ka ilmeysiisay xaaskiisa Nasiima iminka baraha bulshada uu ku sii baahayo runaantii muuqaalkaasi hees yar weeyaan waa si romantiga si dabcan de lamaanayaal oo kale ay u jilayaan muuqaalkaasi waynu soo qaadan rabnay dabcan waxaan isniri ama maxaa la yiraahdayo dabcan saaxiibada si kale u arkaan soo marka muuqaalada qaar anshaxumada in YouTube-ka dabcan la soo bandhigo wanaagsana laakiin kaliya dabcan in idin kaaga sheekeeyo ayaan go'aansaday saaxiibada marka qamar suugaani asagoo meel xalfa jooga ay inta gacanta ka soo qabatay gacanta markay ka soo qabatay meel ay la tagtay meel yaro maaragtay dabcan shidan kadibna muuqaal yar ay iska duubeen marka xaaska qamar suugaani ayaa muuqaalkan aragtay waxay tiri dabcan maadaama de haweeneyta haweenka dabcan inay maseeraan xaq ay u leeyihiin soo marka in la maseerana ceeb ma aha dabcan qamarna ma ugu horeeyo in dabcan asaga qodiisa laga maseero arintan oo kaleeto fanaanin badan iyo waliba lamaanayaal badan ayaa ku kala tageen laakiin kulli waxaan aaminsanahay jacaylka daacadda haduu yahay muuqaal dartii in lagu kala tageenin marka qamar suugaani ayaa iminkan lagu soo waramayaa inuu wajahayo carqalad marka ku saabsan in xaaskiisa ay aragtay dabcan muuqaal si romantiga iminkan baraha bulshada ku sii faafayo run ahaantii muuqaalkan ayaa saaxiibada TikTok isticmaalay waliba kuwa YouTube-ka iminkan waxay ku maadeysanayaan muuqaalkan qaarkood waxay dabcan ku raadinayaan views-ka dabcan ana kama jeclaysan in muuqaalkaasi views aynu ku raadino laakiin waxaanu jeclaysan kaliya in dabcan maadaama lamaanayaasha dabcan arintooda ay cakaranta kaliya in aynu u duceeyno kadibna lamaanayaasha markaasi dabcan Ilaahay uu ka dhigo mid markaasi dabcan farxadooda dib u soo laabata dabcan sidoo kale maxay dareentay markii ay aragtay xaaska qamar suugaan muuqaalka asagay waliba gabar kale iminkan haddii ay gabar daawanayso muuqaalkan bal ka waran haddii aad aragto dabcan xaajiga ama jacaylkaada oo muuqaal kaleeto dabcan la romantic kareynaya ama dabcan gacmaha ka qabsanaya laabta gelinaya ama si kaleeto sameynaya bal haddaad aragto gabar yahay ka waran sidoo kalena bal wiilow adiga qudhaada ka waran haddaad jacaylkaada oo dabcan wiil istaagsan oo hadda laabta iskelinayaan aad aragto bal ka waran maxaa dareemi lahayd marka waxa adiga dareemi lahayd ayay dareentay xaaska lagu magacaabo dabcan Nasiima waana xaaska qamar suugaani weeyaan wax kale ma aysan dareemin kaliya way hinaasta weeyaan dabcan hinaasahaasina wax weyn maaha illa maseero wax weeyaan wax weyn maaha soo marka waxay dareentay kaliya in dabcan qatar ku tahay nafsadeeda haween kastana hadii qalbi furan tahay hadii degan tahay markasto haweenka u simeeyaan dhanka maseerka hadday midaan beenteedii tahay saaxiibada comment way nooga soo qori karayaan iminkan ba comment way noo soo diri karayaan marka kaliya waxay dareentay markay aragtay maseer hinaaso iyo waliba xanaaq laakiin xanaaqeeda ilaa intee uu gaarsiisan yahay ma xanaaqeeda in la furmiyo doonaysaa waa may aadiyad furniinka in lagu digdigo muuqaal yar oo hadaad aragto oo dabcan wax weyn aanan ahayn hadaad aragto aad tiraahdo xaajiga war heeday fur
waxaa laga yaabaa in markaasi qudhaada carqalad ay kugu noqoto laakiin arrinta ma gaarsiisano in la isfuro dabcan dee in la isdalaaqo ma gaarsiisano laakiin dadka qaar waxay leeyihiin ma laga yaabaa inay muuqaalkaasi dartii ay ku kala tagaan Qamar iyo weliba Nasiima kolley wax kasta waa calaf weeyaan maanta haddii la yiraahdo rashka ma jeceshahay inay kala irdhowaan ama ay kala tagaan Qamar Suugaani iyo xaaskiisa inay kala tagaan ama isfuraan ahaanteeda runtii ma jeclaysan lahayn حتى قف كستو صوماليا قف كستو لمانا إن حاسكي سوفر مجعلي سببت تاين لسفردي مو وناكسنا وحويان بل وحان مو وناكسن لسفرياقي آديات فرنينكو آديات ونعبنا هاي مركو قف كستنا معناها طبعا دي ونعبين فرنينكا لكن ذلك قالوا حليهن ملاقيا بيني مقال كسيدرتي أو كالة تاقان kolley aniga ahaanteeda waa maya mana laga yaabo dadka qaarna si kale u fiirsanayaan laakiin macquulna way tahay oo dabcan hada waxaad arkaysaa dad si sahlan isku furay dad markaas si sahlan isku furay soo marka waad aragtay hadii la caato iyo sameeyeen kasto aysan macnaha xaqiiqda aysan ahayn dadka qaar waxay leeyihiin isfureen laakiin mid kaliya dadka kiilmaysiisa waxay ahayd Cabdirashiid Rashka iyo waliba dabcan xaaskiisii hore dabcan Xafsa si fudud ay isku fureen hatta lama dhahin lamaanahaas ayaa isfuraya aadiyad dawladda sadas meesna Qamar Suugaani xaaskiisii hore ogbaad aadiyad waxay isku ahaayeen dad markaasi dabcan kil ilaaba wayna kala tageen marka marmar qaar macnaha dee go'aan ma qaadan karaysid ma dhihi karaysid dadkan way kala tagayaan laakiin markasto jacayl markii la yiraahdo nacayb markii la yiraahdo markasta lamaanayaasha inay kala tagaan ma wanaagsana dhanka kale hadii aynu eegnana ilaa intee la rajeynayaa inuu Qamar uu dejiyo xaaskiisa maadaama ay maseer dartiisa ay u sameyn karayso wax kasta oo nolosheeda ku saabsan dabcan imisa la arkay haween dabcan xaajigooda gubay ama haweeney markaasi jaceelkooda gubay imisa la arkay marka haweenka markay maseeraan runtii wax kasta way sameyn karayaan wax kasta oo noloshooda ku saabsan way sameyn karayaan gacan qaad hadii la yiraahdo haddii la yiraahdo in dabcan furniinka dalbato haddii dabcan tiraahdana warheede in dabcan aad furto xataa ma doonayo kaliya noloshaada dhaafiyo waqti macaan badan ay soo qaadato muddo dhowr bilood xaafadeeda ku maqnaato dabcan marka laakiin markasta waxa loo baahan hajiga aadiyad inuu arinta u dejiyo markii uu arkana xaaskiisa dabcan xanaaqsan inuu dejiyo raaliyo oo markaas uu noqdo oo yiraahdo xabiibtii arintan way iga noqotay macaan badan iga raali noqo maanan u maleeynin maadaama arintan ay dhacday soo marka macaan badan nolosheedii baa tahay aadiyad hablaha way iska beer jilcayeen dabcan maadaama ay beer jilcayeen waxa hubantiya in markaasi 100% la isku wada qanacsan yahay qanacsanaanta ayaa ah mid ugu wanaagsan nolosha hadii haweeneyda kugu qanacsan tahay wax kasto adiga tahay kugu qanacsanta Soomaa kaliya bas adina oo noqo mid markaasi waxyaabaha qaar ka tanaasula dabcan raali gali marka raali galisana kadibna way dabcan aad tiraahdo macaan badan adiga qof aan ahayn ma doonayo marka gabar kasta weeyaan aadiyad haween kasta weeyaan hadii la raali galiyo madaxa laga dhunkado la yiraahdo macaan badan arintan way dhacday mar dambe ma noqonayso waxa tahay ninka ugu raagsan dunida waxa tahay nin markaasi dabcan waaye araga waxa loo baahan yahay dabcan dadka kale tan inaad si barto waxyaabahaas oo kale raggu qaarkood way xun yihiin qaarkood way wanaagsan laakiin ta wanaagsan ayaa markasta badan marka arimaha baraha bulshada la sii faafinayo la dhahayo Qamar Suugaani waa laga inay kala tagaan kolley in la kala tago inay kala tagaan lamanahaas yana kama doonayno maadaama dabcan inuu nahay dadka jaceelka dabcan diyaanamisan hada jaceelka aadanaamisneena dabcan markastana waxyaabaha dabcan waxyaabaha aan dhicin ka sheekeynaya adiga kolley ku taala marka baraha bulshada ayaa dabcan lagu faafinayay maalmihii ugu dambeysay marka saaxiibada muuqaalkan intan iyo ku hakinayaan ku soo gabagabeynaya saaxiibada waxaan idinka codsanayaa hadii dib ay kugu ahaan in muuqaalkan subscribe ay noo saarto hadii dib ay kugu ahaan dabcan aad isleedahay ma daahsani in kaliya like ay noo saarto hadaa dabcan noo sii share gareyn kartana waan kaga mahad celinaya kulli waa kaasa waan kaga mahad celinayna saaxiibada dhamaan hadaan wax qaldan yaraala hada wixii aan saxay iyo wixii aan qalday saaxiibada waxa leeyahay nooli kulantii